habeen wanaagsan daawadayaal haddii aad Soomaaliya ku sugan tahay waxa ay ku tahay xilli habeen ah haddii aad joogtid wadamada caalamkana waxa laga yaabaa inay ku tahay xilli aan habeen ahayn waa habeennimo isniina tirada taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 1 bisha June 2026 waxaan rabaa caawa inaan ku soo gudbiyo xogo iyo macluumaad degdeg ah oo soo kordhay saacadii la soo dhaafay qodobada xasaasiga ah ee wararkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya ciidanka Muuse Suudi Yalaxow oo la wareegay Mirinaayo iyo heshiis halis ku ah mucaaradka oo ka dhacay filla Soomaaliya kadib kulan xasaasi ah oo ay wada qaateen senator Muuse Suudi Yalaxow iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan kula wadaagi doonaa xogta macluumaadka wararkii ugu dambeeyay iyo dhaqdhaqaaqyada culus ee ka dhanka ah mucaaradka ee ka bilowday aagga Mirinaayo iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo ciidamo culus dul dhigtay guriga madaxweyne Shariif uu ka degan yahay Mirinaayo qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan haddii alla laga helo waxa qayb ka noqonaya General Sani Cabdulle madaxweyne Shariif iyo General Odawa Yusuf Raage oo caawa kulan xasaasi ah ku leh Gubadley iyo ciidankii ugu badnaa oo xirtay wadooyinka soo gala degmada Gubadley ee gobolka Banaadir haddaba maxay yihiin dhaqdhaqaaqyada culus ee xilligan soconaya ee ka dhanka ah dowladda federaalka Soomaaliya ee halkaasi ka bilowday senator Muuse Suudi Yalaxow oo isna la tilmaamay in uu xirtay qaybo ka mid ah wadooyinka soo gala degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir waxaan kula wadaagi doonaa hanjabaada culus ee loo dirayo rag uu ka mid yahay General Sani Cabdulle iyo dhaqdhaqaaqyada culus ee ciidanka mucaaradku ay ka bilaabeen duleedka magaalada Muqdisho qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan haddii alla laga helo annaguna aan idiin soo gudbin doono waxaa qayb ka noqonaya ciidanka beesha Muruusade oo caawa difaacyo culus ka xirtay guriga uu degan yahay xildhibaan Jacfar oo ay ka bixeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo la tilmaamay in ay dhaqdhaqaaqyo culus ka fuliyeen sidoo kale hub iyo saanad ciidan oo uu lahaa xildhibaan Jacfarna ay la wareegeen waxaan kula wadaagi doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay ee xiisada culus ee caawa ka taagan degmada Dayniile iyo dhaqdhaqaaqyada xilligan ka soconaya degmadaasi xildhibaan Jacfar oo wacad ku maray in dowladda federaalka Soomaaliya dagaal culus uu ku qaadi doono haddii markaasi dib loogu soo celin waayo hubkii iyo saanadii ciidan ee isagu u lahaa waxaan kula wadaagi doonaa qorshaha wararkii ugu dambeeyay iyo macluumaadka ka soo kordhaya ee markaasi degmada la yiraahdo Dayniile ee gobolka Banaadir qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan haddii alla laga helo annaguna aan idinla wadaagi doono waxaa qayb ka noqonaya kiiskii Sacdiye Bajaaj oo xog cajiib ah laga helay iyo gudoomiye Saalax Daban oo mar kale dib xabsiga ugu celiyay Sacdiye Bajaaj haddaba maxay tahay xogta xasaasiga ah ee la helay maxaa ka jira in la doonayo in kiis cusub loo riixo Sacdiye Bajaaj taasi oo muddo 2 bilood ah u xiran dowladda dhexe federaalka Soomaaliya waxaan kula wadaagi doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay ee arrintan la xiriira iyo dhaqdhaqaaqyada culus ee xilligan soconaya qodobada iyo qodobo kale iyo wax nagu soo kordha ayaa daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay waxaan ku leenahay fadlan nagu soo biir like share muuqaalkan subscribe de boggan si aad uga mid noqoto saaxiibada halkan joogtada uga helaya wararka warbixinada iyo macluumaadka mar walba aan halkan idinkugu soo gudbinayno soo dhawaada daawadayaal qaybaha ugu horeeya ee wararkeena ayaan si toos ah u gudagelaynaa waxaana ku bilaabayaa qodobka ugu horeeya haddii aad hadda nala soo qabsatana waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan noo like garayso si saaxiibo adiga kulamada u gaaro haddii aadan markaasi qayb ka ahayn dadka nagu xiranna waxaan kaa codsanayaa in aad subscribe tiraado boggan waa hagaag weli wararkeena ayaa daawanaysaan qodobka ugu horeeya ayaan ku bilaabayaa ciidanka Muuse Suudi Yalaxow ayaa la wareegay Mirinaayo iyadoo heshiis halis ku ah mucaaradkana ay markaa wada gaareen filla Soomaaliya iyo senator Muuse Suudi Yalaxow kadib kulan xasaasi ah oo ka dhacay xarunta dalka looga arrimiyo kaasi oo dhaxmaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale senator Muuse Suudi Yalaxow ciidankii ugu badnaa oo senator Muuse Suudi Yalaxow ka amar qaadanaya iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa caawa lagu soo waramaya in ay la wareegeen aagga guriga madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed halkaasi oo maalmihii ugu dambeeyay uu ka soconayay abaabulkii ugu xooganaa
laba maalin oo qura ayaa ka dhiman marka loo ballamay in banaanbaxyadu ay ka dhacaan magaalada muqdisho mucaaradkuna ay doonayaan in ay soo bandhigaan afkaartooda ku aadan dhinaca banaanbaxa arrintaasi oo si weyn ay uga soo horjeedo dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud intaas wixii ka horreeya waxaa la tilmaamay in xilligan ciidamo la duldhigi doono meel walba oo dowladdu ay u aragto in ay markaasi xubnaha mucaaradku ka abaabulayaan banaanbaxyadii ugu xoogganaa oo ay ku doonayaan in ay ku carqaladeeyaan xaaladda magaalada tan caasimadda ah ee muqdisho mucaaradka ayaa dhowr meel u qorsheeyey in ay banaanbaxyada ka dhacaan mirinaayo ayaa qayb ka ah goobaha loo qorsheeyey in banaanbaxyadaasi ay ka dhacaan laakiin ciidamo aad u fara badan oo si toos ah uga amar qaadanaya senator muuse suudi yalaxow iyo dowladda federaalka soomaaliya ayaa la tilmaamay in ay la wareegeen mirinaayo oo idil arrintaasi oo muujinaysa in ciidankii mucaaradka gebi ahaanba halkaasi ay iskaga baxeen marka laga soo tago ciidamo ilaalo ka haya guriga madaxweyne shariif arrintan waxaa la tilmaamay in ay dhabarjab weyn ku tahay xubnaha mucaaradka ah ee ka soo horjeeda dowladda dhexe federaalka soomaaliya kuwaasi oo ku haminaya in goobo kala duwan banaanbaxyada ay ku qabtaan wararkii ugu dambeeyey ee hadda aanu helayno ayaa waxa ay sheegayaan in ay soconayaan dhaqdhaqaaqyadii ugu xooga badnaa oo dhinaca dagaalka ah isla markaasina dabcan ciidanka mucaaradka la doonayo in lagu dhabarjabiyo halka ciidanka dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa senator muuse suudi yalaxowna ay wadaan dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa oo ay ku doonayaan in ay kaga hortagaan tallaabooyinka ay qaadayso dowladda dhexe waa markaasi tallaabooyinka ay qaadayaan xubnaha mucaaradka ah ee ka soo horjeeda dowladda dhexe federaalka soomaaliya xogo iyo macluumaad aanu helnay ayaa waxa ay caddaynayaan in aagga mirinaayo xitaa cabsi xoogan laga qabi karo in ay dagaallo ka qarxaan maadaama dhaqdhaqaaqyada soconaya ay yihiin kuwa markaasi aad xilligan isku soo taraya sidoo kalena markaa bixinaya sawirro kala duwan oo muujinaya in markaa ay ka dhici karaan dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa aagga mirinaayo ee dhinaca dowladda federaalka iyo sidoo kale ciidanka mucaaradka ciidamadii ku sugnaa guriga madaxweyne shariif ayaa la tilmaamay in iyagu qudhooda heegankii ugu cuslaa ay galeen sidoo kalena ay doonayaan in ay ka jawaabaan tallaabo walba oo ay qaado dowladda dhexe federaalka soomaaliya arrintaasi oo muujinaysa in xaalad kale oo adag ay markaasi lugaha la geli karaan ciidanka mucaaradka ee ka soo horjeeda dowladda federaalka soomaaliya wararkii ugu dambeeyey iyo xaaladda xilligan taagan ayaa waxa ay hoga tusaalaynaysaa in ay soconayaan dhaqdhaqaaqyo markaasi aad u sarreeya kuwaasi oo muujinaya in xaalad kale oo adag markaasi magaaladan ay lugaha la geli karto wararka hadda aanu helayno ayaa tilmaamaya in ay soconayaan dhaqdhaqaaqyadii ugu xoogganaa ee markaasi dabcan xilligan muujinaya in ay markaasi soconayaan dhaqdhaqaaqyo culus oo ciidanku ay ku doonayaan in ay tillaabooyin ku qaadaan wararka ka imaanaya markaasi degmada la yidhaahdo cabdicasiis ee gobolka banaadir ayaa ku warramaya in ay soconayaan dhaqdhaqaaqyadii ugu xoogganaa oo dhinaca ciidanka ah waxaana la tilmaamay markaasi in ay xilligan taagan tahay xaalad kale oo adag oo markaasi sababi karta in ay markaa dagaalo dhacaan warka ayaa sidoo kale waxa uu intaasi ku darayaa in xilligan markaasi dhaqdhaqaaqyadu ay yihiin kuwo aad u sii adkaanaya sidoo kalena keeni kara in tillaabooyin culus ay qaadaan ciidamada mucaaradka waxaana la tilmaamay in ay soconayaan markaasi dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa xogaha la helayo ayaa sidoo kale waxa ay tilmaamayaan in senator muuse suudi yalaxow wacad ku maray in markaasi dagaal culus uu kala hortegi doono ciidanka mucaaradka sidoo kalena uu keeni doono tallaabooyin kale oo markaasi sababi kara in ciidamada mucaaradka dhammaantood aagga mirinaayo iyo deegaanada kaleba in lagala wareego markaasi sidoo kalena dabcan ciidanka senator muuse suudi yalaxow ayaa heegankii ugu cuslaa waxa ay ka galeen qaybo badan oo ka mid ah degmada markaasi kaaraan ee gobolka banaadir iyo sidoo kale aagga mirinaayo waxaana lagu soo warramayaa in ay xilligan soconayaan dhaqdhaqaaqyadii ugu xoogganaa oo dhinaca ciidanka ah macluumaadka ugu dambeeyey ee aanu helayno ayaa tibaaxaya in dhaqdhaqaaqyadu ay yihiin kuwo markaasi dabcan aan xilligan sahlanayn sidoo kalena keeni kara xaalado kale oo markaasi dabcan masiiri ah
senator muuse sidoo yaalxo waxa uu ka mid yahay ragga aadka u taageersan dowladda uu hogaamiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana la tilmaamay in xaaladan ay tahay mid markaasi muujinaysa xaalad kale oo markaa ay keeni karta in dagaallo ay ka dhacaan aagga miranaayo oo ah goobihii laga abaabuli jiray duulaanka culus ee ka dhanka ah dowladda federaalka soomaaliya wixii ka horreeyey dowladdii uu hogaaminayey madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo miranaayo waxa ay ahayd goobaha saldhigga u ah ee markaasi xubnaha mucaaradka ah ee kasoo horjeeday dowladdaasi iyadoo xilligan la diidan yahay in mucaaradku saldhig ay ka dhigtaan degmada la yidhaahdo cabdicasiis gaar ahaan aagga miranaayo halkaasi oo macluumaadka iyo sidoo kale wararka laga helayo ay markaa tibaaxayaan in markaa ay soconayaan dhaqdhaqaaqyadii ugu xooganaa oo dhinaca dagaalka ah xogaha aanu helnay ayaa sidoo kale waxa ay caddaynayaan ama ay muujinayaan in ay jiraan dhaqdhaqaaqyo kale oo aad u culus oo markaasi sababi kara in xaaladdu isbeddel uu ku yimaado sidoo kalena markaasi ciidanka dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa mucaaradku xilligan in ay isfara saaraan xaaladda miranaayo iyo aagaga ka agdhow ayaa la tilmaamay in ay yihiin kuwa markaasi aad u culus marka loo eego xaaladaha siyaasadeed ee xilligan dalka ka jira kuwaasi oo la tilmaamay in ay sabab noqon karaan in marxalad kale markaasi dalkan uu galo xaaladda guud ee dalka ayaa xilligan u muuqanaysa in ay tahay mid markaasi dhaqdhaqaaqyadu ay ku sii cuslaanayaan iyadoo arrimahanna ay markaasi sabab u yihiin in dowladda federaalka soomaaliya ay markaa doonayso in ay muddo kororsi samaysato sidoo kalena ay ka hortagto tallaabooyinka ee ugu culus ee markaasi dowladda federaalka soomaaliya ay ka qaadi karaan xubnaha mucaaradka ah ee kasoo horjeeda dowladda federaalka ah ee markaasi soomaaliya wixii kusoo kordho oo wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan haddii allah awoodda leh ee markaasi uu raalli ka noqdo aragtidaadana nagula wadaag qaybaha hoose commentiga sidee baad u aragtaa dhaqdhaqaaqyada culus ee xilligan markaasi ka soconaya qaybo ka mid ah gobolka banaadir iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada ay wadaan xubnaha mucaaradka markana genaraal saniya cabdulle iyo sidoo kale madaxweyne shariif ayaa iyo genaraal odawaay yuusuf raage ayaa caawa waxa ay kulan xasaasi ah ku leeyihiin degmada gubadley ee gobolka banaadir iyadoo ciidankii ugu badnaana ay xirteen wadooyinka gala degmadaasi wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya degmada gubadley ee gobolka banaadir ayaa ku waramaya in ay caawa dhaqdhaqaaqyo culus halkaasi ka soconayaan sidoo kalena waxaa la tilmaamay in dhaqdhaqaaqyadaasi ay yihiin kuwo markaasi lagu barataarayo xaaladda guud ee dalka iyo sida xilligan mucaaradku ay tallaabooyin culus u qaadi karaan madaxweynihii toddobaad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo ciidamo uu hogaaminayo oo ka baxay magaalada muqdisho ayaa gaaray degmada gubadley ee gobolka banaadir sidoo kale waxaa galbinayay madaxweyne shariif oo garabkiisa socday taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed genaraal odawaag yuusuf raage waxaana la tilmaamay in dhinacyadu ay markaasi doonayaan xilligan in ay ka wada hadlaan sida 4 bisha ay u dhici karaan banaanbaxyada sidoo kalena looga hortagi karo caqabadaha ay keeni karto dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyadoo dhammaan wadooyinka gala degmada gubadleyna ay isku hareereeyeen ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa xubnaha mucaaradka ah ee kasoo horjeeda dowladda federaalka soomaaliya xilli cabsi xoogan laga muujinayo in mucaaradku ay markaa gudaha u galaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya goobta xilligan shirka uga soconayo guriga genaraal sani cabdulle ayaa la tilmaamay in la iskugu tegay iyadoo markaasi dabcan laga wada hadlayo xaaladda guud ee dalka sani cabdulle iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo genaraal odawaay yuusuf raage waa labada nin ee xilligan la oran karo markaasi naftooda ay u huri karaan madaxweynihii toddobaad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed kaasi oo la daalaadhacaya xaaladda adag ee markaa uu ku kaliyoobay sidoo kalena mucaaradka kale aysan ahayn kuwa markaasi awood badan marka loo eego in ay markaa afka ka hadlayaan oo keliya sidoo kalena xitaa afka aysan ku awood badnayn sida ay qabaan dadka oo daroosa arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale midda amniga intaba madaxweyne shariif oo ah ninka keliya ee xilligan lafta dhunta gashay ku noqday madaxweynaha iminka talada haya ee xasan sheekh maxamuud ayaa la tilmaamay in xilligan uu wado abaabulkii ugu xooganaa oo ka dhan ah dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne shariif waxa uu kulamo kala duwan la qaadanaya saraakiisha ciidanka waxa uu sidoo kale la kulmayaa
ciidamada loogu talagalay in ay qayb ka noqdaan howlaha markaasi xilligan soconaya ee mucaaradku ay garwadeenka ka yihiin waxaana la tilmaamay in madaxweyne shariif markan seefta uu gasha kala baxay sidoo kalena uu diiday wadahadallo badan oo dhinaca qadka taleefanka ah oo uu doonayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in uu kula hadlo sheekh shariif sheekh axmed oo ah nin markaasi muddo dheer dalkan soo hogaaminayay sidoo kalena siyaasadda dalka dibadjoog ka ahaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa xilligan markaasi soconaya dhaqdhaqaaqyadii ugu xoogana oo dhinaca dagaalka ah oo xilligan uu muujinayo madaxweynihii toddobaad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed wararka iyo macluumaadka hadda aanu helayno ayaa tibaaxaya in madaxweyne shariif dhaqdhaqaaqyadan culus ee xilligan uu wado in ay yihiin kuwo markaasi lagu barataarayo xaaladda la xiriirta dhinaca banaanbaxyada madaxweyne shariif ayaa laba arrimood oo adag u soo bandhigay ninka lagu magacaabo sani cabdulle iyo sidoo kale generaal odawaay yuusuf raage labada shuruudood ee adag ayaa ah in ay garab istaagaan ciidankii ugu badnaana ay siiyaan iyo sidoo kale in ay qayb ka noqdaan haddii xitaa ay sababto in dagaal uu ka dhici karo magaalada muqdisho sidoo kalena lagu duuli karo dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud labada arrinba waxaa la tilmaamay in ay aqbaleen qalinkani ay ku duugeen generaal sani cabdulle iyo sidoo kale generaal odawaay yuusuf raage oo labaduba markaasi sheegay in ay garab taagan yihiin madaxweynihii toddobaad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne shariif ayaa doonaya in dalkan ay ka dhacdo doorasho loo wada dhan yahay arrintaasi oo uu sheegay in ay tahay mid lama huraan ah in dalkan doorasho ay ka dhacdo sidoo kalena aan la aqbali karin in madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilligan filada uu sii joogo xaaladan ayaa u muuqanaysa mid markaasi sii adkaanaysa marba marka ka dambaysa laakiin waxaa keliya indhaha lagu hayo waxay tahay mucaaradka soomaaliya tallaabooyinka ay qaadi karaan wixii ka dambeeya 4 bisha oo ay iclaamiyeen in uu dhici doono markaasi arrinta la xiriirta dabcan banaanbaxyada ay doonayaan in ay ku muujiyaan aragtidooda siyaasadeed laakiin wararka qaar ayaa tilmaamaya ee hoose iyo xogaha aanu helayno in ay xilligan soconayaan dhaqdhaqaaqyadii ugu xooga badnaa oo dhinaca markaasi madaxweyne shariif ka imaanaya arrintaasi oo la tilmaamay in ay xitaa sababi karto in dagaallo ay ka dhici karaan magaalada caasimadda ah muqdisho shariif ciidankii ugu badnaa ayuu kula hadlay degmada gubadley oo ka tirsan kuwa mucaaradka waxaana la tilmaamay in madaxweyne shariif xitaa uu bilaabay in uu markaa sameeyo tallaabooyin markaa ciidanka lagu dhiiragelinayo arrintaasi oo muujinaysa in xilligan uu doonayo madaxweyne shariif in garab iyo gaashaan ciidamadu ay u noqdaan madaxweynihii toddobaad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sidoo kalena ay diidaan in dabcan dalkan ay ka dhacaan muddo kororsi sharci darro ah wixii kusoo kordho oo wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan haddii allah ugu dale uu raalli ka noqdo markana ciidanka beesha murugsade ayaa caawa difaacyo culus waxa ay ka xirteen guriga uu ka degan yahay degmada dayniile xildhibaan jacfar oo ay ka bixeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya oo dhaqdhaqaaqyo culus halkaasi ka sameeyey lana tilmaamay in ay qaateen hub iyo saanad ciidan oo uu lahaa xildhibaan jacfar wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya degmada dayniile ayaa ku waramaya in ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan beesha murugsade in ay markaasi caawa hareereeyeen guriga uu degan yahay xildhibaan jacfar oo ka mid ah xildhibaanada sida weyn u dhaliila dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana la soo sheegayaa in caawa dhaqdhaqaaqyo culus halkaasi ay ka bilaabeen xildhibaan jacfar waxa uu tilmaamay in uu dagaalami doono haddii dowladda federaalka soomaaliya hubkii iyo saanadii ciidan ee isagu u lahaa ay dib ugu soo celin weyso arrintaasi oo muujinaysa in xilligan ay soconayaan dhaqdhaqaaqyo lagu caburinayo xubnaha mucaaradka ah ee ka soo horjeeda dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya dayniile waxa ay ka mid tahay meelaha xilligan dhaqdhaqaaqyada ugu badan ay ka soconayaan iyo kacdoonka ka dhanka ah dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya waxaana muuqanaysa in xilligan madaxweyne xasan sheekh maxamuud meelaha uu amray in ciidanka xoogga dalka iyo kuwa amniga ee booliska in ay ka tiiriyaan in ay qayb ka tahay degmada dayniile iyo degmooyin kale oo iyaguna markaasi muhiim u ah geedi u socodka hanaanka dowladnimada soomaaliya in ay sii socoto haddii kalena caqabado iyo dhibaatooyin lagala kulmi karo sida ay caddeeyeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed
macluumaadkii ugu dambeeyey ee aanu helayno ayaa tilmaamaya in caawa dhaqdhaqaaqyo culus ay bilaabeen ciidanka ee markaasi beesha mursade waxaana muuqanaysa in degmada Dayniile ay ka soconayaan dhaqdhaqaaqyadii ugu xooga badnaa oo dhinaca dagaalka ah isla markaasina ciidamada qaarkood ay ku hanjabayaan in ay la dagaalami doonaan cid walba oo isku dayda in ay qaado tallaabo military oo markaasi wax u dhibaysa degmada Dayniile iyo deegaanada kale ee ku xeeran Dayniile waxay ka mid tahay meelaha xilligan uu ka soconayo abaabulka banaanbaxa xoogan ee la doonayo in 4 bisha uu ka dhaco magaalada Muqdisho oo 2 maalin oo qura ay naga xigto arintaasi oo muujinaysa in mucaaradku xilligan markaas xididdo waaweyn ay ku leeyihiin degmada Dayniile waxaana la tilmaamay in Dayniile xilligan ay markaasi ciidankii ugu badnaa doonayaan in ay gudaha u galaan oo ka tirsan kuwa mucaaradka sidoo kalena xildhibaan Jacfar iyo rag kalena ay wadaan abaabulkii ugu xooganaa oo dhinaca dagaalka wixii ku soo kordha wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan ugu dambeyntiina kiiskii Sacdiye Bajaaj ayaa xog cajiib ah laga helay iyadoo gudoomiye Saalax Daban gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir mar kale uu dib u dhigay ama dib ugu celiyo xabsiga Sacdiyo haddaba maxay tahay sababta keentay in Sacdiye Bajaaj mar kale dib xabsiga loogu celiyo wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ku waramaya in mar kale Sacdiye Bajaaj dib loogu celiyo xabsiga oo muddo 2 bil ah ay ku xirnayd waxaana la tilmaamay in dacwada dhageysiga ee Sacdiye Bajaaj dib loo dhigay iyadoo arintaasi loo cuskanayo in xeer ilaalintu aysan keenin wax cadeymo ah oo muujinaya in Sacdiye Bajaaj ay gashay dambiga markaasi lagu eedeynayo xogaha iyo macluumaadkii ugu dambeeyay ee aanu ka helayno maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ku waramaysa in Sacdiye Bajaaj dib loogu celiyay xabsiga dhexe ee dalka iyadoo oo la doonayo in mar kale loo riixo fuustooyin kale oo markaa lagu maxkamadeyn karo Sacdiye Bajaaj sidoo kalena ay uga soo hormuuqan karto maxkamadda gobolka Banaadir oo ah mid ka mid ah maxkamadaha ee markaasi la horgeeyo dadka rayidka ah ee ku kaca kacdoonada la xiriira kicinta dadweynaha iyo sidoo kale ee dambiyada kale ee markaasi loo haysto iyo cid kasta oo aanan ahayn askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama askari aanan ahayn ama aan xabad qof ku dilan macluumaadkii ugu dambeeyay ee la helayo ayaa tilmaamaya in Sacdiye Bajaaj ehelkeedu aad ay uga xumaadeen in gabadhooda dib loogu celiyo xabsiga dhexe arintaasi oo muujinaysa in markaasi xubnaha xeer ilaalintu aysan haynin wax markaasi muujin kara cadeymo dambi loogu soo oogi karo Sacdiye Bajaaj waxaana la tilmaamay in arintaasi ay timid kadib markii maxkamadda la horgeyn waayay cadeymo ku filan sida abukaatayaasha qaar ay inoo xaqiijiyeen abukaata Cali Xalane oo kiiskan gacanta ku haya ayaa sheegay in uu yahay kiis aad u fudud sidoo kalena dabcan xeer ilaalintu aysan uga guuleysan karin kiiskaasi laakiin waxa uu tilmaamay in muhiim ay tahay wadada kaliya ee loo marayo iyo sida markaasi ugu fudud xilligan markaasi kiiskaasi maxkamadda gobolka Banaadir ay u soo bandhigi karto haddaba Sacdiye Bajaaj sidee kula tahay in mar kale dib loogu celiyo xabsiga dhexe ee dalka wixii ku soo kordha wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay waxaan ku leenahay fadlan nagu soo biir like sar muuqaalkan subscribe dhiboggan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada halkan uga hela wararka warbixinada iyo macluumaadka mar walba aan halkan idinku soo gudbinayno waa maasantiin daawadayaal waxaan idin leenahay habeen wanaagsan